lacagtaasi waxay wadarta guud noqonaysaa 7 bilyan oo shilinka Soomaaliland ayaa runtii aanu ilaa hadda isku haynaa. Xildhibaan Cabdirashiid Hayba Faarax oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaaf ba'an oo soo kala dhex galay golaha deegaanka degmada Gabiley. Shalay waxaan noo bilaabnay qodobkii saddexaad ee ajandaha qorshaysnaa. runtii waxa jira meelo badan oo la isla mari laayay oo runtii golaha culays badan ka soo wajahay oo ay ka mid yihiin in qodobo sharci la isku qabtay lacaga badan oo miisaaniyadeed iyagana la baadi goobay halkii runtii ay mareen iyo arinta kale oo saddexaad oo ay inay jiraan xagga gafaf kale oo xagga maamulka runtii oo iyadana lagu eegay golahan iyo kulankiisa intaas horta ay daaran yahay maantana wali xal lagama gaarin barin oo loo balansan yahay inta ku dhamaado insha Allah. Xildhibaan Cabdirashiid Hayba Faarax ayaa sheegay inay jiraan meelo badan oo la isla mari laayahay oo golaha culays badani ka soo wajahay isla markaana qodobo sharciya la isku qabtay. runtii sida nidaamku yahay sharcigu waxa weeyay in xisaab xid golaha la hor keeno ay dib u eegaan xisaab xidkii wax ka soo baxay gudololooyin badan oo maaliyadeed baa ka soo baxay runtii waana kuwa sababay in aan la bixin mushaharooyinka shaqaalaha joogtada qaar kamida tusaale ahaan maamulayaashii iskuulada kale lama bixin MCH-yada mushaharooyinkii ilaa 3 bilood lama bixin maamulayaasha 3 bilood lama bixin shaqaalahan joogtada hayna bisha imiga ku jirto wax mushaharo loo hayaa ma jirto wixii u qorshaystaa runtii lacagtii iyo in kale siyaadaba waa laga saaray qasnadii runtii arintaas oo agaf sharci oo keenaysa runtii la galay kharash ka baxsan miisaaniyadii qorshaysnayd oo 3 bilood ay ugu dambeeyay iyo 4 bilood oo haray oo September ku jirto aan wax lacag shaqaalaha joogtada loo haynin shaqaaluhu kuma eka laakiin waxa jira lacag kale oo badan oo laga saaray 32 madax oo runtii ay ka mid yihiin kabka masaakiinta ay ka mid yihiin gunooyinka loogu tala galay xawaalo qodka waxa ka mid ah gunooyin badan oo 32 oo runtii ayaa mid walba wuxuu la galay casaan baa la galay oo waxa 7% baa la isticmaalay 4 bilood soo socdana wax lacag loo hayaa ma jirto. Xildhibaan Cabdirashiid Hayba Faarax waxa kale oo uu sheegay in xisaaba xidkii miisaaniyadii hore ee 2021 ee golaha la hor keenay ay ka soo baxeen daldaloolooyin fara badan oo maaliyadeed taasina ay sababtay inaan la bixin mushaharooyinka qaarkood. runtii madaxyada aanay ku jirin qoondadii loogu tala galay miisaaniyada loogu tala galay waxa kamid ah mushaharka shaqaalaha joogtada ahayn looma hayo wuxuu ku jiraa casaan oo 2 bilood dambeeyay wax laga bixinayay waxa laga daboolay meelo badan oo qeyr sharciya oo runtii mashaariicda horumarineed ay koob ka yihiin dhiirigelinta shaqaaluhu 950 bay bisha 8aad ay maraysaa 4 bilood soo socdana wax looma hayo shidaalkii runtii 1 bil baa loo hayaa 1 bil oo kaliya loo hayaa daryeelkii gaadiidka shidaalka waxbarashada kharashka hawlaha nabadgelyada sahayda safarada wadada wadadaas iyaduna aan mashaariicdii kamid ahayd sanadkan fuli lahaa oo runtii iyagana aan kilomitir wax ku dhaw dhiman yihiin oo runtii aan la fulin runtii madaxyadaas oo 32 madaxda wax kharasho oo ugu jira ma jiraan sanadka inta hadhay iyo 3 bilood hore soo dhaafay midna ma jiraan. Xildhibaan Cabdirashiid Hayba Faarax waxa kale oo uu shaaca ka qaaday xaddiga lacagta guud ee maqan waxaanu ku sheegay lacagtaasi inay tahay 7 bilyan oo shilinka Soomaaliland ah inta hadda dhiman iyo lacagta ay ka gafaso 4 bilood ee soo socda lacagtaasi waxay wadarta guud noqonaysaa 7 bilyan oo shilinka Soomaaliland ayaa runtii aanu ilaa hadda isku haynaa tii wasaaradda arrimaha gudaha runtii aad iyo aad ugu aad shuruucda goluhu ku aasaasan yahay aad u ilaaliyaan wasiirka iyo wasiirka xigeenka runtii iyagana aad baan u amaanayaa
waxaan jeclahay si wada jira inaan u ilaalino qodobada uu sheegay xeerkaasi hantida ummadana runtii mas'uuliyad baan golaha naga saaran taan waxaan u kor joogteynay wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaraddan runtii gudbinayna wixii warbixinay runtii golhode uu soo gudbiyo iyagaana runtii garsoorka oo runtii haddayna uga garaabaan markaan warbixinta si rasmi ah u soo gudbino iyaga u gudbinaya hantida dhawrka qaranka si loo xaqiijiyo waxyaabahan ku sheegnay warbixintayadan waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case Universal TV gobolka cagaaran ee Gabiley.